القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. qisada geesigan aan maanta ka sheekaynayno waxay u laabanaysaa waqtigii jaahiliga waqtigaas oo carabtu samaysan jireen ilaahyadooda kuwaas oo Allah subxaanahu wa ta'ala cibaadada la wadaajin jireen waxay ahaayeen kuwa samaysta ilaahyo oo ay gacmahooda ku qoreen kana sameeyeen dhagxaan iyo alwaaxyo ilaa qaarkood ay gaareen heer ay samaystaan ilaahyo ay ka sameeyeen timirta oo markii ay gaajoodaanna ay cunaan noloshaas aadka u liidata ayuu ka soo dhex baxay nin Qurayshi ah laguna magacaabo Sayd ibn Amr ibn Nufayl waxa uu fiiriyay xaaladii ay carabta ku sugnaayeen waqtigaas iyo waxay caabudayeen waxayna u diiday fitradiisa saliimka ah ee uu Allah subxaanahu wa ta'ala ku beeray sax ahaanshaha waxaas ay carabtii waqtigaas sameynayeen waxa uu gaaray oo uu ka fikiray cilmi aysan gaarin falaasifadii Farisiyiinta iyo culamo isku sheegay Yoonaanka ama Giriiga ee waqtigaas xadaaradda sheeganayay waxaan ku soo koobaynaa kelimad fudud oo Sayd ibn Amr ibn Nufayl oo u jeediyay qoomkiisii waxa uuna yiri sida tan الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلى ثم تذبحونها على غير اسم الله ridaan waxa abuuray Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu samada ama cirka ugu soo dajiyay biyo kadibna waxa uu u soo saaray dhir ay daaqdo marka maxaad magaca Allah magacaan ahayn ugu gowracaysaan kama hadlayno nabi loo waxyooday kali ahaanshaha Allah subxaanahu wa ta'ala inuu faro dadka balse waxaan ka hadlaynaa nin iska caadi ah kaas oo adeegsaday mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn uguna muhiimsan ee ruux bani aadam la siiyo taas oo ah aqliga si uu u sugo inuu jiro Allah qura oo mudan xaqna u leh in kaligiis la caabudo waxa uu iska diiday cibaadada loola qasto asnaamta sidoo kale ma cuni jirin waxyaabaha loo qalo asnaamtaas waxa uu isaga kala gooshay Sham jasiiratul Arab iyo Ciraaq asagoo raadinaya xaqa iyo xaqiiqada waxa uu la kulmay axbaartii Yahuudeed iyo ruhbaantii Nasaarada ee waqtigaas jiray asagoo xaq raadis ah waxa uu wariyay Imaam al-Bukhari. وذكر البخاري في صحيحه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم waxa uu aaday Sayd ibn Amr ibn Nufayl Sham asagoo raadinaya diin oo ka diin dhigto una qaato waxa uu la kulmay caalim Yahuudi ah wuxuuna ku yiri waxa laga yaabaa inaan diintiina qaata ee sharax oo ii sheeg markaas ayuu Yahuudigu ku yiri Sayd ibn Amr ibn Nufayl diinteena ma qaadanaysid ilaa aad qayb ka mid ah carada Allah qaadato markaas ayuu yiri Sayd waxaan ka cararayaba waa carada Allah subxaanahu wa ta'ala mana u dul qaada karo caradiisa ee ma ii sheegi kartaa diin kale markaas ayuu ku yiri qaado xanafiyada markaas ayuu weydiiyay waxay xanafiyada tahay waxa uu ku yiri waa diintii nabi Ibrahim alayhi salaam mana ahayn Yahuudi iyo Nasraani balse waxa uu caabudi jiray Allah subxaanahu wa ta'ala oo kaliya waxa uu raadiyay Sayd ibn Amr ibn Nufayl raahib Nasraani ah asna waxa uu ku yiri sidii uu Yahuudigu ku yiri oo kale waxay ku kala duwanaayeen lacnada halka ay Yahuudu ka ahayd carada markaas ayuu Sayd ibn Amr ibn Nufayl yiri ilaahayow marka noqo inaan diintii nabi Ibrahim haysto intaas kadib ayuu gabiyay waxa uuna yiri وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا waxa uu ku laabtay jasiiratul Arab
wuxuuna inkiray waxa ay sameynayeen oo ah asnaamta oo la caabudo sidoo kale waxa uu aad u diidi jiray gabdhaha la nolol duugo ninkii doona inuu gabadhiisa duugo inta uu u tago ayuu ku dhihi jiray haduugin anaa kafaalo qaadaye oo waxay u baahato siinaye maalin maalmaha kamid ah ayuu cuskaday kacbada waxa uuna yiri qurayshay waxaad ogaateen in qof diintii nabi ibraahim haysta uusan idinku jirin aniga maahe kadib ayuu istaagay asagoo wareersan oo aanan garanay sidii uu u tukalaha markaas ayuu yiri asaga oo ooyaya اللهم إنني لا أعلم الوجوه التي تحب أن أعبدك فيها وإلا لما تركتها ثم يخر ساجدا أو ربما خر على ظهر دابته ilaahayow haddaan ogaan lahaa sida ugu fiican ee lagu caabudo waan ku caabudi lahaa balse ma garanayo maalin maalmaha kamid ah asagoo jooga Sham ayaa waxa uu yimid nin Nasraani ah oo maqlay xaaladiisa iyo warkiisa markaas ayuu u sheegay in dhawaan uu dhulkooda ka soo bixi doono nin nabi ah oo ku abtirsanaya duriyadii Ismaaciil ibn Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku laabtay Sayd magaalada Makka asagoo sugaya nabigaas la soo saari doono arrinka la yaab kale ayaa ah in Sayd ibn Amr ibn Nufayl oo nabiga sallallahu alayhi وسلم kula kulmi jiray magaalada Makka una sheegi jiray inuu haysto diintii nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku soo guuriyay ibn Hajar al-Asqalani kitaabkiisa Fathul Baariga ee sharaxaya Sahih al-Bukhariga qiso cajiib ah waxaana warinaya Aamir ibn Rabi'a waxa uuna yiri قال لي زيد بن عمرو إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان وكانا يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي وإن طالت بك حياة فاقرأه مني السلام قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال فرد عليه السلام وترحم عليه وقال عليه الصلاة والسلام ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا markale ayuu Sayd ibn Amr ibn Nufayl Sham u baxay waxa uu la kulmay mid kamid ah ruhbaantii Nasaarada waxa uu u sheegay in nabigii ugu dambeeyay ambiyada la soo saaray mana rumaysan Sayd warka loo sheegay farxad darteed waxa uu u soo degdegay dhankii magaalada Makka si uu u arko nabigaas oo uu rajeynayay inuu la kulmo inta uu noolaa mana oga inuu yahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaas oo kula kulmi jiray wadooyinka magaalada Makka markii uu Sayd ibn Amr ibn Nufayl ka soo baxay Sham una soo jeestay dhanka magaalada Makka ayaa waxa dhacday arrin aad u muruga badan waxa soo weeraray intoo wadada ku jiray tuugo ugu dambeeyna way dileen waxayna ahaayeen tuugo reer laqam ah markii uu dareemay halyaygii tawxiid ee Sayd ibn Amr ibn Nufayl inay geeridii soo qaabishay ayuu samada eegay asaga oo ducaysanaya duca aan markaas ka hor la maqal waxa uuna yiri اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا الله يو هداد إيجا حرمتي إنا لكل ما أو أن لصاحب النبي جاجا هكا حرمين ويلكيجا سعيد إنه لكل ما النبي جاس الله نووك أقبل الدعادي وحقوها لي ويلكيسي سعيد ابن سيد أها إسلام ماذا وحقو كمد أها رجي أجوه ريه إسلاما وحقونا كمد أها رجي النبي صلى الله عليه وسلم كواق دواء كان ماذا تضبط الجنة لوجو بشاريي اللو يقانو 10 المبشرون بالجنة هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا